bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiye kulmiyo warida munaasabadani ballaaran oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ahayd mid xisbiga muxaafidka ee kulmiye uu ku shaacinayay 4 musharax oo u tartamaya golaha baarlamaanka ee gobolka Sool iyo waliba 9 musharax oo u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Caynaba. munaasabadani oo ka dhacday magaalada Caynaba ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo kumanaan ka tirsan taageerayaasha musharaxiintan oo soo buuxdhaafiyay madashii ay xafladu ka dhacaysay. waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay salaadiin, waxgarad, cuqaal, aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ee gobolka Saraar. waxaana dhammaantoodba sheegeen in ay soo xuleen musharaxiin xula. waxaan u ducaynayaa murashaxiinta aynu u soo xullay inay noqdaan heerka wakiilada iyo heerka deegaanka labadaba. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii guulaysta allah subxaanahu wa tacaala inuu ka yeelo baynu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa. waxaa farxadii ah inaan maanta ka qayb galo goobjoog ka ahay munaasabadan lagu shaacinayo xildhibaanada isku sidkan ee labada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee gobolka Saraar. sahan kale ma aanu garanay dadkii waxaan u keenay horjooga aan u ahayn, waxaan u keenay xusb xaakinka xukuumadda haya ayaanu dadkoodii u keenay. dhammaantoodba waa ragaanu soo xulay oo kartidooda aanu ku soo xulay iyo waxqabadkooda oo in badan ayaanu soo xulaynay. iyagana sidaas waxaanu leenahay ilaahay xilka wuu idin siinayaa kuwii ummadooda u adeega Allah idinka dhigo. annagu markaan iska warramo gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo sagaar ahaan si rugla oo miisaan leh ayaanu u dooranaynaa xildhibaanada ula shaqaynaynaa xukuumadda. aragtaan wasiirada waxaanu sheegaynaa waa aragtaan gobolka Saraar waxqabadkiisa uu yaraaye dadweynaha ay waxu kordhaan maalin walba waa aragtaan gobolka Saraar inuu xisbiga kulmiye yahay. maanta waxaan ku wareejinaynaa madaxda heer qaran ee xisbiga kulmiye musharaxiintii baarlamaanka ee aanu ka sharaxaynay gobolkan Saraar iyo musharaxiintii golaha deegaanka ee degmada. marka waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa xilka in ilaahay idinku asturo, in ilaahay maaragtay si fiican baanu annana waa idinla shaqaynaynaa. inta waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka ah kulmiye xaligu soo goostay aqaladiina gala yaanu idin burburin. waxaan leeyahay musharaxiintan maanta waa musharaxiin qaali ah, 3 nasiib bay sitaan. xildhibaanadii hore way ka nasiib wacan yihiin. waa mide annagoo sandaladii guudi waa u ducaynaynaa. xusbiga kulmiye xusbi xaakinkiina dee way ka sharaxan yihiin. in aanu uga ducaynayno xildhibaanada halkaa ku sawiran. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ku guuleeyo tartankaa ay loo soo xulay ee ay isu soo urursadeen iyaga iyo shicibkoodiba. sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha baarlamaanka ee gobolka Sool oo ay ka mid ahaayeen musharax Mustafa Axmed Khayreeye, musharax Khayre Cismaan Caalin iyo waliba qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya golaha deegaanka degmada Caynaba oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Jaamac Awad Indha Deero iyo Cabdirasaaq Cabdullaahi Ismaaciil. waxayna bulshada gobolka Saraar ugu baaqeen in ay ugu hiiliyaan codkooda. waxaan u mahadnaqayaa dadkana soo maamuusay ee na soo sharfay ee safarka noo soo galay ee socdaalka dheere ilaa Hargeysa soo galay. mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ay ka mid yihiin, wasiirada dawladda ay ka mid yihiin. ogaanaysan waxaan noqon doonaa idin ilaahay xildhibaanka ugu codka badan la gobolka Sool ayaa noqon doona insha Allah. xisbiga kulmiyana ka soo bixi doona. waxaan aragti
waxaan u mahadnaqayaa deegaankayga inay maanta garteen oo xaq iyo dhallinyaradu hay ay siiyeen waxaan noqon doonaa insha allah xildhibaanka ugu da'da yar ee golaha wakiilada soo gala ma hadda labaad waxaan u celinayaa xisbiga kulmiye madaxda ka socota wasiirada qaranka iyo xisbiga kulmiye oo masaafo dheer u soo galay inay nagala qayb galaan maanta xafladdan aanu ku shaacinayno musharaxnimadayada labada gole ee gobolka sool ee baarlamaanka iyo degmada caynamo oo ay u sharaxan yihiin xildhibaanada golaha deegaanka waxaan dhammaan gobolka saraar u sheegayaa inay waxa weeye sidaa aad noogu soo baxdeen ee xafladda noogu soo camirteen codkana aad noo siisaan insha allah wakhtigu waa iska gaaban yahay inankii halkan iga horreeyey wuxuu sheegay inuu noqonayo xildhibaanka ugu da'da yar golaha baarlamaanka anna dhammaan gobolka saraar waxaan u sheegayaa intii caynabi jirtay inuu noqonayo maayirkii ugu da'da yaraa soo mara gobolka saraar dhammaantiinna aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirada qaaliga ah ee ugu horreeya wasiir salamaan warsamo guray oo aad iyo aad ugu la shaqeeyey xildhibaanada da'da yar leh ee golaha deegaanka ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda somalilan salmaan warsame guuleed wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan maxamed xaaji aadan cilmi iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxayna si isku mid ah u soo dhoweeyeen musharaxiintani sidaan aaminsanahayna magaaladan caynabo ama gobolkan seeraar waxa uu yahay meelaha uu xisbiga kulmiye ku faano meelaha ay guusha xisbiga kulmiye taallo meelaha deegaanada guusha xisbigu ay dagal fadhiga tahay ee aanay ka salguurin waxaan u malaynayaa galabta waa muuqataa xamaasaddii iyo xafladdii iyo taageeradii waa muuqataa maxaa inoo hadhay codkii baa hadhay waxaynu rajaynaynaa inaynu galabta soo baxaan nimankaa dhallinyaradaasi iyo ay soo baxaan si aad iyo aad u qurux badan oo sidii aynu yeeli jiray ah ee xisbiga iyo madaxweynayaasha loo dooran jiray ayaa u soo baxdeen waxaase ay guushu ku xidhan tahay siday namadaa u soo saartaan haddii ilaahay ka dhigo waxaa kaloo ilaahay mahadii ah in ay dhammaan diyaar u yihiin shacabweynuhu inamadii ay doorteen ee mudakarka ahaa inay u dooraan xisbi mudakara oo ay ka soo baxaan salmaan cilmi siciid salmaan kiiko telefishanka caalamiga ee eryal caynaba